xildhibaan Maxamed Kayse oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka 11aad ayaa xaflad taageero iyo soo dhaweyn isugu jirta loogu sameeyay magaalada Columbus Ohio ee cariga Mareykanka iyadoo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee reer Columbus iyo mas'uuliyiin ka kala imaaday deegaanada kale ee cariga Mareykanka. waxaan marka ummadda Soomaaliyeed ummadda maanta meeshan joogta iyo kuwa kelmadani ay gaari doonto intaba aan ugu baaqaynaa ruux kasta oo mas'uul ah oo ummadaas waxa weeye Soomaaliyeed xil waxa weeye u haya muhiim ah in xilkaas lagu ixtiraamo waxa looga fadhiyaa madaxweynaha cusub ee tiinkiisa laba qof inay isbedeshaa macna malo nin inuu kursi ka bedelo laakiin isbedelku waxa weeye waxa uu qofku la yimaado weeye hadday dhaliila jireen xukuumadda hore la dhaliilahayay haddii teeramkii hore uu madaxweynaha ay dhaliila jireen intaba way aragnimadiisa inuu ku dabaqo oo maanta waxaan rabnaa wax walba inuu saxo ma sahlano xildhibaannimada waa ogahay ma sahlano dhib weyn bay leedahay marka ilaahay waa kuu soo fududeeyay haddana xildhibaan baa tahay xildhibaan qaran baa tahay waqtigii hore siyaasadda maylka bilaabo jiray qofka inuusan nagada xisbi inuusan ka qayb galo xisbigaas ha ka bilaabo ma hiya siyaasa laakiin hadda siyaasadda maylka bilaabahay qabiil anaku dadkan u baahanahay waxa kamid ah xildhibaan Kayse oo aanu rabno in xirfadaas wanaagsan oo halkan aanu ku leenahay inaan wadanka dib ugu celino baajiyo waxaan aad kaaga codsanayaa inaad xildhibaanadii hore u ekaatay madaxweynaha si wacan ula shaqeyn jiray aan mooshin keeni jirin ilaahay idin kama dhigo kuwa mooshin keeno oo wadanka khalkhaliya Kayse waa nin injineer oo maaragtay waa la sheegay aqoon ciilimayso karti ciilimayso af Soomaali u yaqaanana ciilimahayo hadda ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu yaani hawshaas ilaahay u fududeeyo وأغنى طبعاً مسؤولية بدنا سويسة إله سبحانه وتعالى حقور جينا حلك إنه أفضل ذيو شقة بدنا أطالع ولي بحلي وحلو جرا متقانا كلا جوركا مرك إن شاء الله وحرجينا إن الدولة صوصعة تجود أهم با إن متقانا حلك إله أفضل ذيو marka sidaas darteed bisha waa 15 walaalkeen waa 15 kii aan dirsanay waxaan rajaynaynaa inuu magaalada Muqdisho iyo caasimadda ka si dhab ah uga dhex muuqan doono hadii aan leeyahay laakiin kulli dib badan iyo culays badan baa hor yaala Soomaalida maanta waliba qaabka wax lagu soo dooranaya ninkii odayga ahaa ee afka ku hadlayay maymayga ayaa waxoogaa tilmaamay hadda waa xulasho qabiil ninna meesha ma laha waa qorisu dhiib raggii khaartahay wax soo waday wax badan bay soo qabteen wixii u dhinaan insha Allah kuwana ayagana inay si dhameystiraan ma rajaynaynaa maxamed maanku xilka doonanayay u malaynayay inuu yahay nin saakay inta ku fail garoobi nolosha halka kan xagga isiri nolol ka barbar ama wax ka doona ma ahayn nin noloshiisa ay fadhido mustaqafiyay tahay ayuu ahaa doorashadu waa iska dhib badan tahay way soo raagtay way soo jiitantay laakiin waxaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed waa qorisu dhiib xilka sare wadanka madaxweynaha wadanka ka tagay madaxweyne cusub ay noo yimi anaga Soomaaliha waa wadan aan wada leenahay madaxweynaheena waa hal haddana waa mudana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa waajib inuu inaan u duceyno waxa waajib inaan taageerno inaan soo dhaweeyno inaan khayr badan u rajeyno taana insha Allah baarlamaan ahaan shaqadeenu waa 3 qaybood waa xeer dejin matalaad shacab iyo la xisaabtan dawladeed xukuumadda marka jirto wax badan baa laga dhawaajiyay baarlamaankii 10aad inay ka gaabiyeen taas waxaan jeclahay baarlamaanka 11aad oo actually aaminsanahay dhalinyaro badan aad u qiimo badan ay soo gashay inay ku guuleysan doonaan insha Allah inay ka korjoogtooyaan xukuumadda